dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Munaasabadan 3 sannadoodlaha mar kasta lagu doorto guddoomiyaha dalladda Sooyo, xafladda quruxda badan ee maanta halkan lagu soo abaabulay. hambalyada ugu weyn waxaan siinayaa guddoomiyihii 3 sannadood aynu soo dhaafnay dalladda soo hogaaminayay sida sharafta iyo milkahalana maanta shirweynaha 11aad hoggaanka iyo golaha lagu dooran doono ku wareejinaya. haddana sida khudbadda fiican ee deganaanshaha iyo niyad wanaagale halkan lagu soo jeediyena waan ku hambalyeynayaa. waxaan leenahay waan ku hambalyeynaynaa. haddii aad 3 sannadood soo hogaaminaysay wixii mustaqbalka soo socdana oday mustambeed ah adiga iyo guddoomiyayaashii horeba ayaa halkan ka noqon doontaan. waana dhaqanka maxaanku dhahdaye Somaliland oo mar kasta aynu kaga wanaagsan nahay dimuqraadiyadda gobolka aynu ka mid nahay iyo guud ahaan qaaradda aynu ka mid nahay intaba. munaasabadan maanta waxay la soo daristay in dowladdii ugu horreysay maanta Somaliland ay aqoonsatay xalatana si official madaxweynuhu ugu sheegay mas-uuliyiintii qaranka, hadday tahay xusbiyada qaranka iyo hadday tahay golayaasha sharci dejinta ee dalka iyo dowladda iyo mas-uuliyiin kaloo fara badan iyo madaxweynayaashii hore intaba aad iyo aad baynu u soo dhoweyneynaa. waa arrintii aynu aad iyo aadka ugu oomanayn, waana arrintii maxaanku dhahday aynu tabaynay, waana dowladdii ugu horreysay ee maanta ayna aqoonsatay. waxaynu nala ognahay inaynu ka marnayn oo aynu ka maqnayn golayaasha adduunyada looga taliyo ee lagu heshiiska yahay, sida jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa, sida jaamacadda Afrika, sida jaamacadda carabta, dowladaha islaamka iyo ururada kale ee caalamiga ee maxaanku dhahday lagu kulmay intaba. hawl inaga maqnayd weeye. sidii raggii hore halkan ay u sheegeen waa suuragal, waana wax dhacaya. cadow fara badan oon markii hore innaka aynugu foognayn ayaa maanta soo baxaya. welibana waxay soo baxayaan iyadoo dowladda maxaanku dhahday ina ictiraaftay, laynugu xoqxoqayo in aad iyo aad dagaal fara badan oo siyaasi ah, dagaal dhaqaale, dagaal cunaqabatayn iyo dagaalkii xabadda lafteeda in intaba laynagu soo qaado. waxaynu la soconnaa shalinta galab intii laga bilaabo ee arrintani ay soo baxday, dowladda Soomaaliya golaheeda dowladda ee taliya iyo madaxweyne ku-sheegeedu shir emergency bay ku jireen. shirka emergency-ga ah wax qayral caadiyaba go-aamadiisa ka soo wada baxaya, kuwaasoo noqonaya waxyaalo giddigood ka soo horjeeda dagaallo maxaanku dhahday Somaliland. mar hadda intaasoo nagu joogto Somaliland markaa indhahan markii hore laynagu eegaynin baa maanta laynagu eegaya. xataa kuwa isle talow ma ictiraaftaan, indhihii hore inagu eegi jireen way naga sii jeedeen. maanta indhaha laynagu eegaya waa indha adag. waxaa la eegayaa nabadgelyadeenna, waxaa la eegayaa nidaamkeenna dowladnimadu nooca uu yahay, waxaa laga eegayaa nidaamkeenna bulsho ee qaran nooca uu yahay, waxaa laynaga eegayaa waxyaalaha curfiyada siyaasiga ah iyo kuwa dawliga ah iyo kuwa bulsho iyo kuwa dhaqaale oo giddigood kuwa salaysan standardka iyo curfiyada caalamiga ee lagu wada shaqeeyo. sooya qayb bay kuwa leedahay oo waxaa qaybta ku leedihin waa ta ugu adag. ta ugu adag waxay noqonaysaa dhallinyarada hablaha iyo inamadaba leh ee reer Somaliland
nooca markaynu doonayno inaynu ictiraafkeenna soo dhammaystirno nooca ay noqonayaan baa laynagu doonaya dee noocaynu iminka nahay qabyaaladda horseedka ka tahay ciddii nagu ictiraafi mayso qolo waliba way leedahay noocyada noocaasa laakiin sida ay u shaqeeyaan iyo sida ay u shaqeeyaan baa kala jaada waxaad ka soo qaaddaa iminka dalkanaynu jaarka nahay ee Ethiopia 80 qowmiyadood iyo 80 luqadood inta ka badan bay leeyihiin qowmiyadda aad tahay magacaagaa sheegaya inaad amxaar tahay magacaagaa sheegaya inaad oromo tahay magacaagaa sheegaya dee haddana waxa weeye markay iyagu joogaan ee adduunyada la macaamilayaan waxay la macaamilaan qole waxay yidhahdaan Ethiopia tagdhab Ethiopia number 1 laakiin reer hebel number 1 baa inakuna aynu ku shaqaynayna haddaba imikaba dib ha la isugu noqdo arrintaa la sameeyo aniga kolle taariikh gaara bay ii tahay oo aanan qofnaba la wadaagino waxa ay tahay halganka qolyihii bilaabay afartii qof ee u horreeyey ee aan ka mid ahaa ayaa keligay maanta ka noolahay allaha qaadira baa markaa igu sumay inaan kooxdaydii ka hadho aniga oo nool Somaliland la ictiraafo marka xisaab fara badan dareen fara badan xog fara badan xaaladoo dhan anigu ma seexan saakaa noo soo jeeda ayaan maxaan ku idhaahdaa salaadii subaxnimo tukaday xaaloo dhan waxaan tirinayay saaxiibadayni weliba meesha ku dhintay xaaloo dhan waxaan eegayay oo adigu talo sidaad uga soo hadhay marka waxaan leeyahay dhallinyaradiinna xorriyaddanaynu maanta joogneen la aqoonsaday may iska imanin sadaqadna kuma iman qadar ilaahay way inoogu timid laakiin cidi nagumaday sadaqaysanin rag daadii naasha iyo hablo soo halgamay oo daadii naasha ayaa maxaan ku idhaahdaa ayay keenay mararka qaarkood dhallinyarada anu marka leeyaanu kufsamayn waxaan ku idhahdaa dee waar weydaan korayninba oo idinkoo 50 jir iyo 60 jira ayuunbaa leedihin dhallinyarada raggii berigaa bilaabay 30 jirada ugu waaweyn hadda waa qoladii saraakiishaad kuwa kale waa ka yaryaraayeen marka waxaynu doonaynaa markaa imika maanta dhowr arrimood inaga socon maayaan dhowrka arrimood marxaladan cusub ee horena inaga gudbin maayaan marxalad intii hore ka adag baynu gallay marxaladaynu imika gallay waxaynu u baahannahay geer culus inaynu gelinno waxaynu u baahannahay in aad iyo aad aynu nabadgelyadeenna u ilaalino xaaladda waa la dabaaldegaya laakiin wixii rabaa dhici karaya waynu garanaynaa noocaynu ahayn waana marka ay wax dhacaan maanta oo kale shirkii dowladda Soomaaliya xaaladda ay gashay kow waxa ugu horeeya wuxuu noqonayaa wax saameeya nabadgelyadeenna wax qaraxii nagu soo celiya wax diida arrintan ayagoo diin ku gabanaya wax diida arrintan iyagoo qabyaalad ku gabanaya wax diida iyagoo innaka inaga mida reer Somaliland reer Burca reer Hargeysa reer Ceerigaaba reer Awdala reer Gabilaya reer Berbera reer Balligubadla reer Oodweyna ayaga oo haddana cid kale u adeegaya ayaa nabadgelyada la doonayo Somaliland inay ka dhacdo maxaan ku dhahdaa ay sameynayaan hadal hadeerta Cabdilqaadir yidhi iimaan baa lagama maarmaan aho maanta qof walba waxaa laga rabaa inuu askari yahay halkan horena rag kalena way ka yidhaahdeen qof walba waxaa laga rabaa maxaan ku idhaahdaa inuu biliis yahay qof walba waxaa laga yaabaa inuu ciidanka qaranka yahay laakiin haddaynu barkamada iska dheeraano nidhaahno dee annaga ma shaqaynayna haysato maxaan ku idhaahdaa Cabdiraxmaan Reeyo iyo dowladdu madaxda ka yahay na ilaalinaya intaasi inaguma filla waxaynu u baahannahay marka inaynu aad iyo aad u dadaalo waa dhab weeye sugaya in dowra imika soo jirtay inaanay halkeedii ugu horreeyey ku saqiirin shirarkii ugu horreeyey shirkii ugu muddada adkaa baan anigu joogayo
markaa waxa aadka u adkeeyey waxay ahayd la iskuma haynin guddoomiyaha hore in la bedelo laakiin waxa la isku hayay guddoomiyaha imanaya waa reer waa qolonimaa la isugu hayay idinkoo dhallinyaro ah oo qolada weli dabada haya waxba idin kordhin maysa mustaqbalkiinay cunaysaa dhibta ugu badan ee imika ina hayaana mashaakilka ugu badan ee ina hayaana ee hadda dowladnimadeennana ragaadinaya kuwa horena soo ragaadiyey xalna weli aynaan iska weydiin waxa ka mid a qabiilka gaariye allah raxma suugaantiisii waxa ka mid a marka reer hebel marka hebel la taataa reer hebel dabqanaya bal waxa uga 15 ninka reer hebel ee xil haya ama wasiir ama madaxweyne ama barasaab ama meeyer ama guddoomiye xusbi marka la bedelo reer hebel waxba ugama 15 aha waxa aad iyo aad imika adduunyada waxyaalaha loo qoro ama waxyaalaha la xaqiijiyay waxa ka mid ah inaan Afrika mushkiladda haysata aanay dhaqaale la'aan ahayn ee ay tahay maxaan ku dhahday qabyaalad laba dowladood baa la isbarbar dhigay dowladdu waa dowladda Congo dowladuna waa dowladda Malaysia October 1960 bay labadu xorriyadda heleen Congo macdanta adduunyada la adeegsada diamond ugu qaalisan more or less uguya oo Congo diamond ku jirta waxay u dhigantaa ama way ka badan tahay adduunyada inteeda kale Malaysia macdan fara badan ma leh Malaysia maanta waxay ku jirtaa dowladaha la high tech diyaaradaha maraakiibta waxa la nooca maxaan ku dhahday sameeyaan Kongada noocaasina maanta inakoon layna aqoonsan inakoon sharaa'ig helin khayraadkeena soo saara ayay inaga liidatay majaacad baa loogu dhimanaya waana qabyaaladda arrinta qabyaaladda meel xun bay inaga maraysaa aynu maxaan ku dhahday hagaajino madaxweynaha aad iyo aad baan u hambaleynaynaa waa madaxweynihii lixaad madaxweynihii koobaad ilaa kii shanaad ee isaga ka horreeyey nin waliba Somaliland tisbu maalin soo dhigayay nin waliba raggii ugu horreeyey laydhkan quruxdan hay-adahan systemkan iyadoon lahayn bay madaxweynayaashii qaar soo maray haddana waa la soo dagaalamay halkana la soo gaarsiiyey madaxweynuhuna muddadii yareed uu joogay halkii ay maraysay buu ka sii qaaday qadarka alla keenay inuu isagu maanta itiraafka keeno ragga horena guddigood way la wada lahaayeen waxaynu u baahannahay isna inuu nagu maamulo nidaamka dowladnimada innakana waxaynu u baahannahay inaynu dowladnimada ictiraafno dowladnimada ku adkaano waxaynu wax ku dhaqaynaana ay system dhaqan dowladeed sharci dowladeed iyo intaas maxaan ku dhahdaa ay noqoto waan idin hambaleynayaa in maanta maxaan ku dhahdaa daayarta halkan fadhidana ay tahay maalin maxaan ku dhahdaa ictiraafka aynu helay inta kasii dambaysa sidii raggii hore yidhaahdeen de annagu qoladaydaas maxaan ku dhahdaa iminka tii horena sii joogtay waanu iska gaabinaynaa idinkaan idinku halaynaynaa ina aad u shaqaysaan haddii fardihiinu gaabiyeen qaranka idinkaan la gaabiyey